waxaan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijka faaqidaada caalamka oo idinkaga imaanaya telefishinka Hoyga Banaadir. barnaamijka ayaa waxaa soo jeedinaya anigoo ah Aweys Maxamed Nuur Aweys Foodey. waxaana maanta ku soo qaadanaya militariga Israa'iil oo sheegay inay dileen madaxii ururka Hezbollah Sheikh Hassan Nasrullah. Israa'iil ayaa qaaday weerar aan la filayn oo ku jihaysan caasimadda dalka Lubnaan ee Beirut iyadoo bartilmaameysatay xarumaha kooxda Hezbollah ee taageersan Iran iyo keedkeeda hubka. weeraradii ugu horeeyay ayaa la rumaysan yahay in lagu bartilmaameysaday hogaamiyaha kooxda Sheikh Hassan Nasrullah isla markaana sidoo kale la burburiyay dhismayaal ku yaala koonfurta magaalada Beirut. ugu yaraan 6 qof ayaa lagu dilay weerarka balse weli wax wara lagama hayo xaaladda Hassan Nasrullah. lama saadaali karo haddii weerarkan uu ku dhintay hogaamiyihii kooxda Sheikh Hassan Nasrullah sida uu sheegay sarkaal sare oo Israa'iil ah oo la hadlay warbaahinta gudaha ee dalkaasi. ciidamada Israa'iil ayaa amray in dadka ku nool 3 aag oo gaar ah inay guryahooda ka baxaan kadibna waxay fuliyeen in ka badan 20 weerar oo kale muddo 5 saacadood oo xiriir ah. kumanaan qof ayaa guryahooda ka qaxay ayagoo gabaad ka raadinaya barxadaha fagaarayaasha iyo wadooyinka magaalada Beirut. ciidamada difaaca ee Israa'iil ayaa sidoo kale sheegay inay bartilmaameysadeen goobo ku yaala magaalada Tyre ee koonfurta Lubnaan halkaas oo ay ku dileen taliyayaal sare oo ka tirsan kooxda Hezbollah. Sheikh Hassan Nasrullah ma awoodi doono inuu argagax geliyo caalamka ayuu sarkaal ka tirsan militariga Israa'iil ku soo qoray barta uu ku leeyahay X. Israa'iil ayaa duqeymo cusub oo dhinaca cirka ku qaaday magaalada Beirut gaar ahaan duleedka koonfureed ee magaaladaasi iyo deegaano kale oo ka tirsan dalka Lubnaan. maanta oo Sabti ah waa maalin kadib markii ay qaaday weerarkii ugu baanaa ee ka dhaca duleedka koonfureed ee magaalada Beirut. haddaba waa kuma Sheikh Hassan Nasrullah hogaamiyaha kooxda Hezbollah? bal aynu eegno taariikhdiisa oo kooban. Sheikh Hassan Nasrullah waa wadaad Shiico ah oo tan iyo bishii February sanadkii 1992 madax ka ahaa kooxda Hezbollah ee dalka Lubnaan. kooxdan ayaa xilligaasi lagu tiriyaa mid ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ugu muhiimsan dalka Lubnaan kuwaas oo leh ciidamo hubeysan oo u gaar ah inay weheliyaan ciidamada qaranka ee Lubnaan. Hassan Nasrullah oo caan ka ah Lubnaan iyo dalalka kale ee Carabta ayaa lagu tiriyaa ninka ugu weyn ururka Hezbollah wuxuuna door muhiim ah ka qaaday isbedelada taariikhiga ah ee kooxdan si ay u galaan saaxadda siyaasadda inay awood ku yeeshaan heekalka dawladda Lubnaan. waxa uu xiriir qoto dheer leeyahay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran iyo hogaamiyaheeda Ayatollah Ali Khamenei. inkasta oo Mareykanka ku daray Hezbollah liiska ururada argagixisada haddana madaxda Iran iyo Hassan Nasrullah midkoodna ma qarin xiriirka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya. Hassan Nasrullah waxa uu leeyahay taageerayaal badan oo jecel si lamida waxa uu leeyahay cadow badan. in muddo ah kama uusan soo muuqan meel fagaara ah isagoo ka baqaya in Israa'iil ay disho. inuusan soo muuqan ma aysan sababin in taageerayaashiisu ay waayaan khudbadihiisa. khudbadaha uu jeediyo ayaa ah aalad muhiim ah oo Nasrullah u adeegsado si uu uga faaloodo arrimo kala duwan oo ku saabsan Lubnaan iyo caalamka.